وما أرسلنا naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan ujeeddo kale maaha waxa lainoogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya sidee diintani ay nolosheenna u timaadaa bas السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني ما شاء الله إلهي بانكو حمدنا مر والبا نعم فربضان بإلهي دوشنا أودغي نعمت إلهي نسيي نعمد أقويني والهداية وهنونك ويان إن إلهي كو هنونيو وطريق حق إلهي أوكو مريو وقف مسلمة أو قمان أو توصن إلهي أوكادغو نعمت أدونك دوشيدا إنت اللي جوغا إلهي أوبحيو ونعمد أقوين ويان inay nicmadaasi nicamta ugu weyn tahayna waxaa caddaynaysa salaada markaan tukanayno keena faqiirka keena qaniga keena lab iyo keena dhidig keena madaxa iyo keena mijaha su-aasha keliya ee salaada dhexdeeda qofka loo ogol yahay ilaahay inuu ku weydiisto waa su-aal waliba ku soo aroortay suuradda faatixada dhexdeeda suuradda faatixaduna waxa weeyaan waa ruknu min arkaani الsalaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa laa salaata liman lam yaqra' biummi اlqur'aan suuraddaas suuratu lfaatixa qofka aanan akhrisan buu nebigu yihi salaad ma leh oo salaad uma ahaanin salaadaas markaa suuraddaasi iyada magaceega dhan baaba salaaya su-aasha keliya ee ku soo aroortay waxa weeyaan markaan suuradda aan akhrisanayno waa ihdina asiraata almustaqiim ilaahu dariiqa mustaqiimkaaga ilaahu nagu toosiyo no mari taasaa markaa caddaynaysa in shayga ugu qiimo badan ee ilaahay bini aadanka adduunka dusheeda uu ku siiyey inay tahay alhidaaya hidaayaduna wax kale maahayn waxa weeyaan waa hanuun oo ilaahay caza wajalla ayaa mulkiyo oo ilaahay baa haya hanuunkaas qofka ilaahay khayr uu la rabaa ilaahay nuurkaana qalbigiisa uu yeelaa hanuunka ilaahay baa bixiya xataa malaa'igtu ma bixin karto nebiyaduna ma bixin karaan oo nebi haddii uu milkiyey hidaayaduu nebi bixinayo nebi nuux calayhi salaam inankiisa iyo xaaskiisa ayuu siin lahaa nebi ibraahimna aabbihii buu siin lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna adeerkii abaa aalib buu siin lahaa laakiin hidaayaddaasi waa hidaayatu tawfiiq ilaahay baa hayo ilaahay baa mulkiya oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam adeerkii abaa aalib oo nebigeenna soo gacan hayay oo soo koriyey oo korsiinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qeyb weyn ku lahaa markuu bukooday ee xanuunku uu riday ayuu nebigu ziyaarto uu u galay waxa uga sii horreeyey oo la joogay markaa abujahal calayhi lacna deedna markaa buu nebigu dhinac buu ka fadhiisto wuxuu ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama
adeer waxaad ii tidhaahdaa hal mar keliya aniga imaqashii oo waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh maalinka qiyaamahan aniguna maaragtaane kuu dacwin doonaaye oo ilaahay caza wajalla hortiisa ayaan ka marag furi doonaa inaad adduunka dusheeda kelmadda aad ku soo tidhi lianna nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa malag baa ii yimid oo igu yidhi laba mid kala dooro ayaa ilaahay ku leeyahay inay ummaddaadu kala badh ay jannada gasho iyo in shafaacadda lagu siiyo deedna nebigu waa kii lahaa shafaacadda ayaan qaatay oo shafaacaddeedu waxay gaadhi doontaa qof allihii qofkii adduunka dusheeda ku soo ashahaatee laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah sala allahu calayh wasalam ee islaamnimada soo galay waxaan u helayaa buu nebigu leeyahay qiil aan qiyaamaha ugu dacwin karo taabuu markaa nebigu adeerka abu aalib uu ku lahaa kelmadda aniga hal mar keliya imaqashii maalinka qiyaamahan kuu shafeecad qaadi doonaaye deedna nebigeena sala allahu calayh wasalam adeerkii waxaa ag fadhiyay abujahl calayhi lacna fircawna haadihi alumma ayaa markaa ku yidhi abaa aalibow ma diintii aabbayaasha aad ka dhaxashay ee miladii cabdulmuطalib intood ka leexata maad moxamed maanta warkiisa aad qaadanaysaa deedna markaasuu iska aamusay abu aalib haa iyo maya midna ma odhan deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana uu soo jeediyo wuxuu ku yidhi kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama hal mar adeer aniga kelmadda imaqashii maalinka qiyaamaha han ku shafeecad qaade hadalkii u dambaysay abaa aalib uu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhaahdo calaa millati cabdilmuطalib baan ku dhintay moxamedow aniga iska kaydaa deedna naftiina way ka dhacday labadaa indhood isagoo nebiga ilintu ay ka daadanaysa buu nebigu ka kacay halkaas maxaa yeelay adeerkii u jeclaa nebigu kursiintiisa iyo maaragtaane ilaalintiisa iyo racaayadiisa qayb xoogle ayuu markaa abu aalib uu ka soo qaatay khayrkuu nebigu la jeclaa oo hidaayadda iyo naxariista ayuu la jeclaa laakiin hidaayadda nebi maxamed ma hayo ilaahay baa ku yidhi innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin kaad adigu aad jeclaata ma soo hadaynaysid baa nebiga lagu yidhi waa hidaayadda tawfiiqda waafajinta ilaahay baa iska leh ka aan doonna annaka hadaynayna baa ilaahay yidhi caza wajal kuwa hanuunayana annaka naqaana baa ilaahay nebigiisa uu ku yidhi marka hidaayaddaas ilaahay baa milkiyey cid kale ma hayso oo dee nebi maxamed hadduu milkin lahaa hidaayadda bilaalow xabashiya hidaayadda ma heleene abaa aalib oo qurayshiya buu nebigu hadayn lahaa abulahab oo qurayshiyo nebiga adeerkiya buu nebigu hadayn lahaa hidaayadda haddii ay cid milkinayso een maaragtaane dee nebi ibraahim calayhi salaam aabbihii gaalnimo kuma dhinteene bal hidaayadduu ku deeqi lahaa uu siin lahaa marka hidaayadda ilaahay baa haya caza wajalla kuu doonana ilaahay isagaa hanuuniya kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa baadiyeeya oo lumiya muuse binu cimraan waa nebi muuse calayhi salaam oo 30 sannadood aqalka fircoon ku barbaaray oo ku korayna ilaahay uu hanuuniyo waxa uu ka dhigay nebi rasuulah oo la yidhi waliba wakallama allaahu muusa takliima waa nebiga keliya adduunka dusheeda ilaahay caza wajalla hadalkiisa ku maqlay buu ahaa nebi muuse calayhi salaam nebi muuse oo aqalka fircoon ku barbaaray ka hanuuniyey ee risaaladda u doortay inuu nebi rasuula uu noqdana waa allaahu rabbulcaalamiin weeyaan waxaa kaloo hidaayadda aanan nasiib u helin ninkii la odhan jiray saamiriy muuse binu dafar baa isagana la odhan jiray buu yidhi ibnu cabbaas waa ninka reer bani israa'iil ahaayee malakuljibriil suuraddiisii malakiga intuu ku arkay haddana ilaahayna rumayni waayey rasuulkii loo soo dirayna raaci waayeyna kaana hadday ay noqonayso hidaayaddu in qof uu hadeeyo aragtida jibriil uu ku hanuuni lahaa limaada jibriil waa malak ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qaamad iyo quwad iyo taaqad ku abuuro siiyey ninka malagaa arkayna ilaahay hidaayadda kumuu deeqine ilaahay hidaayadda waxa uu ku deeqay ninkii guriga fircoon ku barbaaray ayaa ilaahay hidaayadda ku galladaystay marka hanuunka ilaahay baa bixiya innaka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo nicmeeyey oo hanuun baa ilaahayna siiyey laba xaas oo qur-aanka lagu sheegay daraba allaahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay'a waqiila idkhula annaara maca addaakhiliin wadaraba allaahu maalan liladiina aamanuu imra'ata fircawn
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والله بقي سوء عجيبة في سورة التحريم بيكوتها لأواخر كده. والله بقي سوء عبر قادة الشله أول الربعين كو عبر قادة تد أود إسلام ماذا يهداية إلهي كوكو ديقو كسيي أدو آنو ويديسن با إلهي قف مسلم إلهي وكادقه وين النعمة إلهي تبارك وتعالى آنو قم هذنا أون قدرنا. والله بحاس لبدو باللبن النبي بكوهس نولايين مدوا زوجة نوح عليه السلام مدوا زوجة اللوط عليه السلام لبد النبي حاسس كودينا إلهي هداية البابدي دي وكحدي قال لما أي كل نولايين يكو قال لما دا قرسنايا أي هوستا قال لما كو قرسنايين النبي دين وي خائمين وين خيانيين نارتا كواريا وندبا إلهي لكو نارتا كواريي ayaad ma oogatihiina naarta la galaba kuwa ku nidhi baa ilaahay yidhi halkan la yidhi taaqiya fircawn ood garanaysaan oo qur-aanka lagaga warramay oo 26 juz oo qur-aanka ilaahay ku taalla ayaa nebi muuse calayhi salaam iyo fircawn wixii dhex mara lagu soo celceliyey fircawn oo kibirkiisa iyo qooqiisa ilaahay qur-aanka uu noogaga warramay faxashara fanaadaa faqaala ana rabbukum laclaa ninka dadka intuu u yeedhu fagaaraha soo joojiyey ku yidhi rabbigii korreeye sarreeyey waa aniga aqalka ninkaasi uu ku dhex nool yahay gabadhii ku noolaydna ilaahay caza wajalla hidaayadda ilaahay ku galladaystay oo ilaahay islaamnimadu qalbigeeda ku sharxay waata ku ducaysanaysa ee leh rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna ilaahow aniga guri agtaada iiga dhismay ku tidhi agtaada xataa maa qaalat ambiyada agtooda iiga dhismay odhana waxay tidhi إلهه وحرب جنة إن أكتاد أقل أنك أديك دستا وكي النبي لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن هذا إلهي ويدي سنيسان ومر بإلهي أدبر يسام النبي عليه الصلاة والسلام جنة فردوس الليلة إلهي ويديستا maxaa yeelay jannooyinka ayada ayaa ugu sarraysa ayadaana ugu dhaxayso waa bartamahay ku toosan tahay carshiga raxmaanka ayaa saqfigeeda ah webiyaalka jannada maro oo dhan ayadee ka bilaabmaan ka burqamaan buu nebigu yidhi gabadha ilaahay waxay weydiisatay rabbi ibni li cindaka baytan fi ljanna tarabbat fii beyti fircawn wacaashat fii beyti fircawn wara'at duqyaana fircawn kibirkii fircawn bay u soo jeeday arkaysay مجتمع يكون دحبر بارت ومجتمع نينك هايست أوليه أنيقا أيا ربيا ما علمت لكم من إله غيري إله أنيقا أنا هينو كلا نوغا هيوني أوغا هي مجرتي أنيقا إلهي عبود الشخص الصدالة قابد قوريقا نينكا ودقينها كبر بارتي إلهي عز وجل قلبي إذا وحو كسر حي إلهي جريتان كيسونو يهي حق نبي موسى عليه السلام رسالة ديسو حق إنay tahay ba qalbigeeda lagu sharxay waxayna ku ducaysanaysaa ay leedahay rabbi ibni li cindaka baytan fi ljanna ilaahow aniga waxaan ku weydiisanayaa agtaada guri ilaahow iiga dhis wanajini min fircawna wa camalihi fircawna ilaahow iga foge camalkiisana ilaahow iga dheere gaalka ilaahow aniga iga dheere gaalada acmaashoodana ilaahow iga dheere gaalku uu ku tacsiirin uu ku saamayn مجتمع ويس سامعيان هذا المجتمع مسلم آل هيستو وحكى لها كوب الدلين وقو إسلام ماذا كو خير بدن مجتمع مسلم كي أشهادنا يا ولو دين تودو بهالنقطة الدين ضعيفة هالنقطة لكن قال إن تقول نحن ولاته مسلم قد كو أجن ولاته هبا كو أجا جوتي دي هبا كو أجرفاد دي مسلم كأشهادنا يا مرنا قال لما أنا لو قبغين إنه قالوا بو إن تكو أجن ولاته أياكو خير بدن لذلك قبضها وحي لهذا فرعون كليه يقفوقين ملا وحي لهذا عمل كيسن إلهه يقفوقين ونجني من القوم الظالمين قوم كاسنا والظالمين إلهه إياك أن يقدر بيتي إلهي تبارك وتعالى وقادر على كل شيء وصدو دون يالا وإلهي أسماء إلهي وحاكمة الهادي هنونية وإلهي عز وجل إله عز وجل موسى السامريين إلهي هداية ومقدرين وانك جبريل أركي موسى بن عمران وقصر فرعون كورينا إلهي عز وجل أوهنوني مؤمن
nebi rasuuloo kaliimullah baa laga dhigay labadii haween ee nebi nuux iyo nebi luud ay kala qabeen ee laba nebi hoostooda ku barbaartayna albaabka hidaayadda looma furin tii qasriga fircoon ku barbaartayna aasiyatu bintu masaaxim waliba waxaa nebiga loo bishaareeyey inay noqonayso xaasaska nebi maxamed jannada loogu dhisi doona ka mid noqonaysa ilaahay hidaayadda isagaa bixiya innaka ilaahay waa inoo nicmeeyey dadkan khaasatan afka luqadan soomaaliga ee ku hadlayo fahmaya ee ku hadlow si gaara ilaahay ugu xamdino muslimiin baa ilaahay naga dhigay aabbayaasheen muslim walaalaheen muslim awowyaasheen muslim ajdaaddeennu muslim ciddaad ka soo jeedda waa muslim saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nicamta khaaska innaka inoo khaaska wallaahi iyaku maynan helin saxaabada rasuulka siiradooda markii loo noqday isagii hadduu muslim noqdo aabbihii gaalnimadu ku sugnaa khaalid ibnu saciid baa ka mid ah saxaabiga loodhan jiray allaha raalli ka noqde khaalid ibnu saciid wuxuu ku manaamay asbaabta uu ku islaamay waxaa ka mid ahayd isaga oo wuxuu ku manaamay aabbihii oo naar ku dhex jira oo inankiisana soo qaabanaya oo soo jiidaya oo naarta ku soo tuuraya uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna halkaa guntiga uu ka hayo deedna markaasaan hurdadii ka kacay buu yidhi argagax abubakar sidiiq baan u sheegoon ku yidhi abubakarow maxamed adigaa rumeeyo raacee bal manaamkanaan arkay ii cabir baan ku yidhi buu yidhi markaa ii cabir riyada wanaagsanaad ku riyootaa dadka khayrka aad ku tuhmaysaa loo sheegaa waa waxay kugu cabbiraan laakiin waxaa la yidhahdo xulumka hawaawiga ee naxdinta badanla lama sheego waa sunnadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam deedna saxaabigaasi u ordo wuxuu u sheegay abubakar sidiiq baa ku yidhi manaamka aad aragtay waa xaq aabbahaa naar buu ku dhacayaa oo gaalnimadaa uu ku jiro kufriga iyo shirkigaabuu ku dhimanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna diintanuu inoola yimid ee waa diin inagu leh naarta ha ka badbaadaane aniga isoo raac buu nebiguna leeyahay wa ana aakhuduhum bixujazikum min annaar wa antum tufallituuna min yadaya anigoona guntigaasaan iniga hayaa halkaa dhexirka ayaan ini hayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam si aad naarta ugu dhicin baan iniga xajinayaa ininkuna waad iska kay gundhanaysaan oo naartaad ku hoobanaysaan buu rasuulku yidhi deedna riyadii markuu u sheegay buu yidhi wallaahi manaamkaa lagu tusay waa xaq aabbahaa naar buu ku dambayni doonaa naar buuna ku dhici doonaa gaalnimuu ku dhimanayaa adigana nebi maxamed uu kuu gurmanayaaye han kuu geeya kaalay oo iska soo islaam oo nebi maxamed ku dayay buu yidhi raac waa hagaag uu soo kaxeeyey deedna markaa buu nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam khaalid ibnu saciid markaa nebiga hortiisuu ku islaamay aabbihii baa maqlay markaa saciid binulcaas baa maqlay in inankiisii uu diinta muxamed u galay waa makaa la joogaa dadka muslimiintu waa fara ku tiris weeyaan qof alihii qofkii muslimee islaamnimada ilaahay ku galladaysto markaaba waa la cadaabayaayo waa la dhibayaa walaalihii buu u diru yidhi soo qabta waa la qabtay afarta addin baa laga xidhay biyihii baa laga dhabay baadkii baa loo diiday waxaa lagu qasbayaa inuu gaaloobuu ridoobo walaakiin isagu waxa uu leeyahay may laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam deedna marka uu kari waayey uu arkay ninkani inuu diinta islaamka uunan ka noqonaynin ayuu yidhi xarkaha ka sii daaya magaaladaa maka ha iska galo wejigiisa ha iga qariyo meelaan joogayuuna soo joogsan baadna siini mayno biyana waraabin mayno harraadiyo ooniya gaajaha u dhintee markii sidaa aabbihii uu ku yidhi ayuu yidhi aabba haddaad adigu quudkaad haysatay aad iga mancisatay aniga ilaahay baa i quudinaya buu ka yidhi allah muslim jadiida oo shalay islaamay ayaa markaaba qalbigiisa yaqiintu ay ku dhibcaysaa oo ku leh hangaajoodo aabbahay han waayo walaalahay han waayo qaraabadayda han waayo waxay dhibaato i soo gaadha ha i soo gaadho laakiin mar haddaan muslim anu aanahay islaamnimada waan ku qanacsanahay diinta islaamka igu filan oo ideeqi doonto weeyaan haa diinta islaamku ha kugu filnaato ayuhalmuslim ha eegin hunguriga nin muslima oo dadkeenna ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo waddannadaa reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerkao dhan u qaado markaasaan salaamnayo salaamu calaykum maa sha allah bal warranoo waxaa igu maqala inaad dhoofaysid markaasuu hi haa waan dhoofayaa xaggee tegi dhulkaas maxaa jira wuxuu idhi qaaradan afrika la idhaayo oo layskuma hadlayn karo buu idhi nabadgelya ma taallo tacliin ma taallo
caafimaad ma yaallo shaqa ma taallo system ma shaqeeyo kolba ninka meesha haystoon baa dadka ku jooga marka wadannada horumaray ee nabadgelyadu ay taallo ee dhakhtarka iyo tacliinta fiican leh ayaan ciyaalka mustaqbalkooga la raadsanayaa buu yidhi u fiirso khaalid ibn saciidna eeg shaluu islaamay aabbihii baa ku leh baadiye bii ku siin maayo markaasuu u jawaab uu leeyahay carabka maaha waxa jawaabaya waa caqiidada ayaa jawaabaysa iimaanka qalbigiisa ku jira jawaabayo ku leh aabba haddaad adigu baadkiiyo biyahaagii aad iga mancisatay aniga ilaahay baa ii quudinaya oo i siinayay buu ku yidhi khaalid ibn saciid uu yimid nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam waa markuu nebigu joogay daartii arqam ibn alarqam halkaa buu nebigu xataa masaajidka xaramka looma ogolayn halkaa buu nebigu saxaabadiisa qur'aanka makiga maka ku soo degay ee aayaadka qur'aaniga makiga iimaaniyaadkii aakhirada ka warramaya iyo qisasul anbiyaa iyo wal umam asaabiqa ayuu markaa nebigu dushooda ku akhriyaa iimaankooga ayaa markaa dhismaya yaqiintoodii caqiidadooda ayaa la dhisayaa u tarbiyadaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna maalin maalmaha ka mid a wuxuu maqlay khaalid aabbaha waa sankaraad deedna markaa buu soo socday aabbihii oo sankaraada buu dul yimiday odaygii dhalay markaa buu dul joogsaday odaygii baa sidaa u eegay ma khaalid baa ha aabba waa khaalid weeyaan diintii maxamed ma ka soo noqotay markaasuu yidhi may aabba may kama soo noqon kamana soo noqonayo mid iga qor buu ka yidhi mid iga qor haddii xanuunka aan ka kaca buu yidhi maanta ilaaha muxamed maka lagu caabudi maayo buu ku yidhi khaalid ibnu saciid wuu maqlayaa hadalka gaalnimadu aabbihii uu ku manaamay inuu naar ku dhacayo qiblada intuu u jeestay ayuu yidhi samada intuu eegu gacmaha cirka u taagay buu yidhi ilaahow aabbahay mowqifkiisa weli ma bedelina halkaasoo ma taagno ilaahow xanuunka ha ka kicin ilaahu ku qaad buu yidhi isagana u habaaray xanuunka inuuba ka kicinba ilaahu ku qaad ilaahay waa ku qaaday xanuunkii gaalnimadiisii jahannamuu la tegay walciyaadu billaah waxaan ka wadaa saxaabada rasuulka radia allaahu canhum islaamnimada hadduu saxaabigu muslim yahay isaguna ma aragtaane aabbihii iyo hooyadii iyo dadkiisu gaalnimada ku sugnaayeen abaa hurayra radia allaahu canhu markuu islaamay hooyadii oo da'ah gaalnimada weli baaqi ay ku sii tahay markaasuu abaa hurayra nebiga u yimaada calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga cilmiga ka bartaa haddana hooyadii buu u tagaa wuu u soo khidmeeyaa mar alli markuu u tagana dacwaddu u bandhigaayo risaaladdu u bandhigaa markaaba iska diidaayo tiraahdaa ila dhaaf diintaada anu ma rabi diintaadee maalin maalmaha ka mid a abaa hurayra allaha raalli ka noqdee isagoo lilmadu ay ka yaacaysa buu nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebigu ku yidhi yaa abaa hurayra waa maxay oohintan maanta maxaa ku helood la ooyeysaa ii sheeg wuxuu yidhi yaa rasuula allah hooyaday waa mushrikad oo gaalnimadiibay weli iyo shirkigiibay ku sugan tahay mar kastana waan u bandhigaa risaaladda iyo tawxiidka waan u bandhigaa way idiidi jirtay laakiin maanta hadal aan u adkaysan waayey bay igu tidhi buu yidhi oo hadalkaa waa maxay hadalkaa waliba adigay kaa tidhi adigay kuula jeeday hadal xun oo adiga aanan kuu qalmaynin ayay nebi allow adiga kugu tilmaamtay nebi baariya ayaa tahay oo barakaysane u ducee hooyaday ilaahay inuu ii soo hadeeyo markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu gacmaha cirka u taago wuxuu yidhi allaahumma hdi umma abi hurayrata abaa hurayrahan hooyadii ilaahow soo hadee abaa hurayre hooyadii ilaahow soo hadee deedna abaa hurayra radia allaahu canhu wuxuu yidhi anuu ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam bishaaraysan in la ii aqbalay ayaan u radis qaaday buuli wase sii daayey deedna markaan usoo shanqadhaydii markay maqashay ayay hadasho waxay tidhi ha ii soo gelina dibadda joog waan istaagay waxaan maqlay markaa biyahay ku maydhanaysay shanqadhoodii sawdkii markaasaan nidhi way maydhanaysaa maasha allah markaabay tidhi ii keen maradii baan u dhiibay soo gal shahaadateynka ii qaba bay ku tiri waan islaamayaaye bal fiirso u laqinay isagoo ooyaya buu nebigu u yimid sal alla alay wasalam oohintan iminka waa farxad maxaa dhacay abaa hurayrow yaa rasuula allah ducadaadii ilaahay waa aqbalayo hooyaday way soo islaamtay buu yidhi sidaasay saxaabadu ahaayeen laakiin innaka maanta ilaahay waa inoo nicmeeyey haddaan abtirsanno
labaatanka oday soddonka oday aad ku abtirsanaysid hal oday oo gaala laga heli maayo jadka jad waxaan dadkan ka soo jeedin wada muslimiin oo wada shahaadanayay oo qaarkood inagay naga tawxiid fiicnaayeen oo naga diin fiicnaayeen oo naga dhaqan fiicnaayeen oo naga dadnimo fiicnaayeen oo ducadooda ilaahay aqbalayay tabaaraka wa tacaala oo waxaad laga yaabaa inaad ka soo jeedid dad xalaal mirada oo dhaqan wanaagsan leh nin culimada muslimiinta kamida oo inuu yahay baan u maleynayaa masri ayaa tawaasul al-ijtimaacigan ban ka daawaday maalin lajnatu tahkiim wadannada Scandinavia wadan kamida ayuu musaabaqatu al-Qur'aan buu markaa ka qaadayay waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi waxaan idhi Sweden ayaa ka socda yar Soomaaliya soo kacay buu yidhi waan yaabay Australia ayaa ka socda oo quraanka musaabaqada uga qayb galaya waa Soomaali buu yidhi America ayaa ka socda waa Soomaali London ayaa ka socda UK waa Soomaali wuxuu yidhi ma garan kara buu yidhi xidhiidh baa jira buu yidhi xidhiidh waa hadalkan ku ta'athuray aad ay maartaan ay taabtay wuxuu yidhi maaha innika buu yidhi laga yaabaa aabbayaashiin dadkaad ka soo jeedaan laga yaabaa inay jirto sir iyo ka ilaahay u dhaxaysay waa waxa ilaahay quraanka inoogu ilaalsanaya weeyaan bifadli illaahi caza wajalla wa bikaramihi meelo badan oo adduunka aan maray oo safaro dacwadeed u maray masaajid kuma tukado ilaa imaamka salaada tujinaya waa Soomaali qaariga salaada tujinaya waa Soomaali marka nicmada ilaahay nagu galadeystay nicmata al-hidaayah nicmata al-iimaan wal islaam nicmadaas marka han qadarino oo ilaahay han ugu mahadino oo han ku shukrino oo nicmada dhulka ha dhigin ha dayicin meel kor u qaad waxa ugu qaalisan ilaahay adduunka dusheeda uu dadka u siiyo waa hidaayadii baan haysanaa marka nicmada ilaahayna siiyo waxaan u baahanahay inaan ilaalsano oo ku amal fallo oo ubadkeena barno oo inagu diinteena barano oo inagu diinteena ka shaqeyno waa saddexda diintu ay ku ilaalsanto waa saddexdaas al-ilmu wad-da'watu wal-amal al-ilmu wal-amal wad-da'watu ilayhima علمك إن الدين تدبرت وفريضة على كل مسلم ومسلمة إن الدين تقاننا أتكو عمل فشاء وقيامها اللي يسوي دين دونا والقرآن حجة لك أو عليك قرآنك أي دين إلهيك السيي مالك قيامها أما حجوك كفر دونا أما أدقو قرآنك حجك نغني دونا الصوم والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويقول الصوم ويقول الصيام منعته الطعام في النهار فشفعني فيه حديث معنيه سوها النبي وكيلها لبا قيامها وشفاعات قال يا لبو صوم كنا وشفاعات قال قفك الصوم جري ووحو كورنا يا ربي أدونك دوشيدي مالنكي أيا شهودي سكربه إرجانه إله إرجدا يقبل بورنا يا إرجان وهاي قرآنكنا وحا وليهي habeenkii buu kici jiro akhrin jire ilaahu shafaacad ergaan u ahe ergada ay aqbal buu isaguna leeyahay quraankii marka hadda diintan ku amal fasho maalinka qiyaamaha diinta iyada ku shafaacad qaadi wad-da'watu ilayhima iyo in dadka muslimiintana barashada diinta loogu yeedho salaada loogu yeedho gabdhaha u yeedhaan asturka loogu yeedho dhaqanka wanaagsan loogu yeedho haddaad adigu daaci noqonood ummadda khayrka ugu yeedhin adigaa lagu yeedhin addacwatu ila allah fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya waana min asbaabi alhidaayah wadcu ilaa rabbika innaka la calaa hudan mustaqiim nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku lahaa dadka xagga rabbiga ugu yeedh haddaad dadka xagga rabbiga aad ugu yeedhaysid dariiqii mustaqiimka hanuunkii baad dul saaran tahay baa nebiga lagu yidhi dacwaddu markaad ummadda khayrka aad gaadhsiinaysid waa min asbaabi alhidaaya waa asbaabta aad ku garan karaysid nicmadda ilaahay ku siiyey qadarkayga marka nicmadda ilaahayna siiyey islaamnimada han ku shukrino ilaahayna han ugu mahadnaqno meel kale indhaha u taagtaagin cizu dunya wal aakhira haddaad doonto diintaada uneeg ibnu cabbaas
الله رالي كان نقضي سقي أبيبه وحويري عبادة إيه دينتني خيرك إلهي نسيي هدو قفك كد دالو وإلهي حرير في عنو الله يشو وعبادة دي صلاة دي سلقا أقبلو شن فوائد بأدونك دو شيء إلهي كصيا نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق حداد عبادة هذا طاعة هذا دينتن إلهي كصيا رغنا كان نقطات كل رغنتو شنتا نعمضات بأدونك إلهي كقدر سينيا شنتا نعمضات نور في القلب قلبك إلهي نور كو قلنا يا نور وضياء في الوجه وجهي أنا إفتين باك بحا يا مر والبا قف بشاش وفرحات بدن بعد نقونيسا وبلا استرس أيام نقونيسا وقوة في البدن جلك أنا إلهي قوتي حوق بو قلنا يا وسعة في الرزق أرزاق هذا إلهي وقوة سعنا يا ومحبة في قلوب الخلق خلقك أنا جعيلا إلهي قلبك وذكو قلنا يا شنتا نعمضات لقو مهل العق لقو مهل أقوانتان أدوية مادقو لقو تلحتقو لقو مهل قبيالد لقو مهل منصب ابن عباس مفسر القرآن حبر هذه الأمة أيا كوشيغ يا أو كله هدي إلهي أذيقا حجير كيني قد حي أوهقاقا شنتا نعمضات بأدونك إلهي كوصينا يا نور في القلب قلبك والنور نور كقلبك ومحي وعندها قلبك يا كفر ما يا وعندها لغو أركا خالقة يا مخلوق فرق محا ودحيا أدوية قابا يا آخرة واسعة بدل له فرق محا ودحيا طاعة إلهي يا معصية فرق محا ودحيا أشياء يا ماتريالك يا صلاة يا عملك وناكسن دفرن فرق محا ودحيا إسلام نمدا يا قبيالة فرق محا ودحيا ونورك لغو أركا ونور القلب ويان وضياء في الوجه وجهنا إفتين باك بحايا حسن البصري الله نحرسته عالم من علماء السلف هذه الأمة وتابعين تعيو كمدها وجهيس أسمر اللون مدبك الناس وكلا عيولها وجهيس إفتين باك بحجري سؤال بالويديو لغو يري وجهاك إفتين باك بحا محاد سميسان نوشيك وحو يري ساعدها دتك أي هردان أيان إله إلا مناجودا بودانيكو ساعده وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون بإلى هيدي مؤمنين علامات كاللغو أماني وحا كمدا وقتك السحورتا ووقتك غفلت أي بدنتهي ووقتك الشيطان قفك ودوشي سكوير هذا هبين دير بعدوش هذا اسكجيف أيان كعاب ساعدها بان كعاب لأن إلهي بان لمنا جودا مركاسا لويري حدنا مجلس كاغن مجالسك لو كدوين هي ومحوكو كدوين ها لويري waxaan arkaynaa majliskaagan madaxda kula fadhiisanaysa awlaadii madaxdu ay dhaleen baa ku dhageysanaysa maalqabeennadii baa ku dhageysanaya sidee markaa ku dhacdaa lagu yidhi inay dadka shurafadu ay hadalkaaga iyo khayrkaaga jeclaadaan waan ninii sheegayaa buuhi taana jawaab baan niga siinayaa waxay haysteen baan u daayey waxaan haystana waa u bahdeen buu ku yidhi waxay haystaan maxay haystaan madaxdu adduunyadii bay haystaan maalqabeennadu warqadee lacag ay haystaan madaxdu mansab bay haystaan maalqabeennadu lacag bay haystaan farahaan uga qaaday waan u daayey anu xagga ilaahay baan u jeestay xagga diintaan u jeestay cilmiga ilaahay i baray ayaan ummadda intoon meel u fadhiistay shaqadaydu waxa weeyaan dadka iyo ilaahay baan isku xidhaa maadaamaan ilaahay ku kalsoonahay waxaan haystay u baahdeen markaa iyakii waayo ninka muslimka nicmadda uu haysto waa nicmad dadkoo dhan u baahan yihiin bal dad muslimiina maanta waxaa ka dhaadhacsan ma taqaanaan gaalada lagama maarmi karo horumarkoogaan u baahannahay aqoontoodaan u baahannahay systemkoogaan u baahannahay la'aantood lama noolan karo waxaanad ogeyn waa run aqoon hadday leeyihiin aqoontooda ka soo baro laguma diidano system fiican haddaad ku aragto iyagoo ku dhaqmaya wixii diintaada islaamka aan waxba u dhibaynin ka soo qaado waayo nebigeennaa noo sheegay calayhi salaatu wassalaam nebigeennaa saxaabada ku yidhi war umuurtiinna adduunyada ninka iga aqoon badan buu nebigu ku yidhi laakiin waxaanad ogayn adigu oo kaa maqan gaaladu sababtaaday ku nool yihiine adigu iyaga sababtooda kuma noolid
مسلم كسببتي سي أدوية كسعوتا مسلم كأشهادنا والروح دي عالمك بني آدم الروح دي سهداي كبحضو جلكني وميد ميدنا ولا اسكا آسا روح دي عالمك كسعودا ما تغانا والإسلام إن الدين عند الله الإسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله في صحيح مسلم وحو نبي كل شيء ضبيل إنك إيمان دوت من قبل الشاب ضبيل قبول لأن مرقاسا قف كستأو مؤمنة أما مسقال ذرة وحي إشو أركت وحي أغير أو خيرة أما إيمان قفك قلبيس وكجرب نبي يري ضبيل شاسي انتي قشو سنكي أفك انتي كقشو أيو أودي من يابو نبي يري حتى متكين هدو بور على شيء وكجل لها ضبيل شا انتي كدب قشو أي روح لك سوق أمام النبي يري قف مؤمنة أدونك كهار مايو ضبيش أساب مؤمنين تأدوية كوضا رفع عيسى فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق مع النبي يقولي دتك أدوية وقش شربدا أي عالم كوسو هاري دونا كواسو وناقنا عن اسفرين حماهنا عن اسكريبين أرزاقتنا لنا أول بلغة إبليس بس كوسو صوري دونا أو أرندونا عنك ما يدي أجيب إيسان أو محانا أمر إيسان هنكو أجيبنا بيكو أرنيان وحو أرندونا أصنام تدبو عابدا كواسو أصنام تعابدا يبو نبي يري أو إلهي غيرك عابدا يا أو منكر كنا ملو البقو يا الله أيا سعادة قيامة كل عدون تابو رسولك يري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سعد رادد ولا ليال مسلم أقو عالم كان إنكو إنكو تاقين يهدتك لك كوما تاقنو أذيك الروح دي عالم كان maxaa laga rabaa inaad adigu islaamnimadaada muujisaa laga rabaa in islaamnimadu ka noqon sheegasho ay ka noqoto maaragtaan ku dhaqan waayo dhaqankaaga umadu arkaysa wadankan aad ku nooshihiin ininku khaasatan dadkiina dhulkan jooga iyo dadka qurbaha jooga ee wacdiga dhageysanayaba salaada tukanaysa dadka gaaladu ma arkaan soonka aad soomaysana ma arkaan xajka aad gudanaysana ma arkaan oo maka intaanan la gelin waxaaba ku qoran ma aragtaan mamnuuc qof aan muslim ahayn maba gali karaba zakada diibaysana gaaladu nasiiba kuma leh sideeta sinfi ee zakada la siinayo waa dadka muslimiinta loogu talagalay marka haddii salaadaadi gaaladu aynan arkayn soonkaagiina uunan arkaynin xajkaagiina aynan arkaynin dadka gaaladu markaa maxay arkayaan dhaqankaaga markaa arkayaan seed u dhaqmaysaa islaamnimada ilaahay ku siiyey ee uu kugu galladaystay ma kaa muuqataa adiga mise magacuun bay kaa tahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maka markuu soo galay dhinac walba ciidan buu ka soo gashay 4,000 ayaa lagu qiyaasaa marka dadka magaalada maka ku noolaa quraysh lugihii nabigeena hoosjoogsadeen markaa buu nabigu ku yidhi maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad maanta iga malaynaysaa inaan nagu samayn buu nabigu yidhi quraysh waxay nabiga dhib u geysteen la og yahayna waa qoran tahay bilaal bay dhibeen cumar bay dhibeen abubakar bay dhibeen oo nabi maxamed bay dhibeen ma dheerayn 6 sano ka hor 8 sano ka hor bay ahayd qiyaastii maxaad u malaynaysaan maanta inaan nagu samayn maxaad iga filanaysaan hal mar keliya intay sidaa u eegeen bay ku yidhaahdeen waxaan kaa malaynaynaa khayr waxaan u aragnaa inaad tahay walaalkaygii wanaagsanaa uu noo dhalay markaa buu nabigu ku yidhi aniguna maanta waxaan istaagayaa mowqif cajiiba mowqifkee halkii nebi yuusuf walaalihii oo qaxootiya markay u yimaadeen isagoo wasiirkii maaliyadda ee masrax ayuu ku yidhi laa tathriiba calaykum alyawma yakfiru allaahu lakum wa huwa arxamu arraaximiin maanta wax laynaga aargoosanayaa ma jirto ilaahay dembigiinna ha dhaafo kuwa naxariista ka ugu naxariis badan waa ilaahay sidii nebi yuusuf walaalihii uula dhaqmay ayaan aniguna maanta iniila dhaqmee aqalladiina gala buu nebigu yidhi aamin baa tin wala nabadgeliya buu rasuulku ku yidhi wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi may noqon aqallada kumay noqon reer intay u baxeen ayay nebiga saf u soo galeen iyagoo ashahaadanaya يا الله وما لنته
وخالد يري ما أنت ومالنتي هلبك ومالنتي قريش لقوقيني أنصار ساسيد هذا الأنصار مركب النبي يقول مي عباس وشيء أنصار ما أنت مالنتي دتك لقورع عيل الليني ماها كل ما أنت ومالنتي نحرست وما أرسل naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan ujeeddo kale maaha waxa lainoogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya siday diintani ay nolosheenna u timaadaa bas marka waxaan nagula dardaarmayaa nafteedana kula dardaarmaya inaan dadaalka ziyaadino ducada badino diintu ay naga noqoto maaragtaan ku dhaqan guryaheena ubadkeena gabdhaheena diinta ku ababino insha Allah dhahada hada wabillahi tawfiiq sallallahu ala sayyidina muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi